Somaliland xaq ma u leedahay inay go'do jawaabteeduna waxa weeyaan maya xaq uma laha Somaliland inay go'do sababta ay ugu lahayna waan sheegayaa runway oo ma garanaysaa lixdankii xornimaan helay haddaan Somaliland reer Somaliland nahay waxaanan ku biiray dawladdii Italian Somaliland baan ku biiray oo waxaan wada samaynay soo wada marka loo eego sharciga international looga oranaya dawlad haddii ay ictiraaf raadinayso waa inay markii hore ka samaysantay gumaysigii ka xorowgiisii oo ma garanaysaa markii laga xoroowayay laga helayay ma garanaysaa ay kataliska laba kooxood ma loo ogolaa sideetanadii qarnigii 18aad iyo 19aad waxa la oran jiray waa reer Yurub kaliya qarnigii 20aadna wuxuu ahaa Afrika marka Afrika waxa la isku dhacay meeshii xuduud ahaydba in ma garanaysaa dadkii helay ay noqon karaan marka way jirtaa arintaas oo sidaas waa la oran karaa laakiin shuruudda labaadna iyadana waa ka soo baxeen oo oranaysa waa in uu jira xuduud go'an iyo dad go'an oo aad xukumayso 3 milyan ee dheeraad 3 milyan bay xukuntaa waa run dhinacaasna waxa kale lagu xidhaa in uu dawladnimo ay sameeyeen hadda wayna sameeyeen oo dawladda hadda ka samaysan Somaliland waa dawladda lacagteedii leh ciidankeedii leh maxkamadeedii leh madaxweynayaasheedii leh la doorto madaxdeeda madax isku bedesho weeyaa waa run ta afraad ayaa inay gobonnimo jirto oo gobonnimo qaadatay taas way hadaba ta Soomaalida iyo ta labaad oo aan sheegi doono labadaas weeyaan ta magaraysa ana xaq u yeelanayno waxaan ugu yeelanaynaa waxa weeyaan mar haddii uu samaysmay wadan cusub oo markii hore wuxuu doonaba ahayd mar haddii wadan cusub samaysmay sharciyadaas oo dhan waxay isbedeleen 1964 markii ay samaysantay oo AU ay samaysantay ay wax badan isku bedelay oo Afrika ku heshiisay xeer la yiraahdo uti possibilities oo as you possess inta aad haysataa ha kugu filaato meel xuduudda hadda jirta waqtiga la joogay kama boodi kartid taana waxa loo yeelay waxa weeyaan adduunka oo dhan baad isku raacsanoo in la yareeyo inay soo baxdo dadka go'aa qayb wadan oo ka go'da wadankii inay soo baxdo oo laba sharci oo jira oo adduunka ku caamaba la isku magaranaysa miisaama mid waxa weeyaan xaq uu bilaadanku u leeyahay in uu go'i karo in uu cid wax ku darsan karo in uu xataa ku milmi karo oo assimilation waxa la yiraahdo uu leeyahay taas oo territorial rights la yiraahdo waxa taa lagu miisaama oo trade looga sameeyaa sharci kale oo oranaya territorial integrity of the states oo inuu state jira uu xaq u leeyahay in xuduudiisii la ilaaliyo oo aan laga go'in sababta taasana runtii aad u xoog badan oo iminka adduunku inkastoo United Nationska iyo adduunku ka hadlo human rights individual rights laga hadlo haddana adduunku kama koobna dawladaha adduunka ama ururada adduunku kama koobna qof kama koobna waxay ka kooban yihiin oo unitkooda oo selkooda uu yahay unugoogu wuxuu yahay dawlado states ayaa unitka marka dawladaha xaqooga ayaa laga hadlaa inta badan sida darteed laguma dhici karo adduunka sharcigiisu ka gaabsadaa inuu dawlad yiraahdo waa lagu karaa xataa haddii dawlad jilicsan ay tahay lama oran dawladdu ma jilicsan tahay lama oran burburaysa lama oran waxa soo dhaw waxa la yiri dawlad inay jirtay dawladdii Soomaaliyeed ee 64 jirtana waxa loo arkaa dawlad jirtay oo rasmi ayaa loo arkaa ta ugu dambeysay ee aad iyo aad au adkaanayso inay Somaliland ku hesho wixii loo oran jiray magaraysa ixtiraaf ku hesho oo adduunku aanu ku dhici karaynin waa ta adduunka waxa la eegaa cid la siinay inta badan sida Suudaan oo kale waxa la eegaa dadkaas sida loogu cadaadinayo diintooda sida loogu cadaadinayo aragooga sida loogu cadaadinayo afkooga iyo cid ay yihiin sida loogu cadaadinayo inagu waa run dad badan baa inaga dhintay xasuuq badan baa ka dhacay laakiin bayskiisu ma ahayn diin ma ahayn af lagu kala duwan yahay ma ahayn dad lagu kala duwan yahay luqad lagu kala duwan ma ahayn waa dad Soomaaliyeed oo isku mid ayaa jira sidaa darteed adduunku kuma dhici karo oo morally ayay ku adag tahay inay kala gooyaan dad isku dad inay kala gooyaan aad buu adag tahay kuma dhici karo sidaa darteed
wuxuu ku soo ururayaa warkoo kale wuxuu ku soo ururayaa dawlad kasta oo hadda go'aysaa waa inay fasax ka heshaa dawladda laga go'ayo ama ha jilicsanaato ama ha jilicsanaanin haddaba masaakilka dhacay waxa weeyaan Somaliland ilduuf bay samaysay 1900 iyo imisan haystaa xogaaba ay dhimanay